soo wado iyo webiga yaa weyn 8 fiidmo xilliga Soomaaliya ayay ku kala cadaan doontaa waxa la yidhi daacadnimo muudo xaqa haddii afka la qabto feeruhu ka bilaaca waxa la socotaan in looga isku dhaho oo shacabku muqdisho soo gacan mariyay soo gacan bixiyay oo lacag ka milyan kala soo caray oo hargeysa hadda ku sugan inuu maalmo ugu dambeeyay iga dhigtay qiiq uu isku qariyo oo uu iskaga mashquuliyo dadkii daba joogay ee uu hantida ka soo dhacay looga ku habsaay maayo sababtoo ah in dhibaato ugu filan farqu ku haystaa in 20 milyan ku maqan tahay oo dhowr kun oo qof ay daba joogaan haddii 1 milyan oo ku boodbooda ma xataa la qaaran karin lacagta xaddiga leegta waa garanaysaan nin intaa oo qof soo dhacay oo ay daba joogaanna dee intuu dhuuntaba waa maalmo kooban waxaa la socotaan looge inuu maalmihii ugu dhakeynayay oo meel walba la taagnaa shiino culay wuxuu rabaa inuu ibaado isagoo rag la socday isbaaru uu dhigtay hantida aan sito oo masaakiintu leedahay uu rabaa inuu musiga qaato saasuu arrinteeda u soo galay arrintaa wax ka duwan baa inuu soo bandhigay gartu ilaahay bay taqaanaa idinkaana ka garnaqi doona marka arrintaa aan idiin soo bandhigo aa aragtaan arrintaas waxa weeye oo aan ku caddayn doonaa iyadoo ah itus oo itaas arrintiisa meeshaan ka soo galay sidaan u soo galay qaabkii laygu sharaxay ciddii soo gelisay sababta aan ka fursan waayey ee gelisay wixii la igu sheekeeyey ee ninkaan midafkiisa la yidhi shiino culayow u qabo waa soo bandhigi doonaa idinkaana markaas waxaa la rabaa intaasaa uga dhigataan oo labadii wuxuu akhriyayey waa dhurwaag iyo tanaa isu egtaan tii markaa maangal ah qaadataan waana caddayn buuxda haddana halka la soo fadhiisanayo tiroorada maaha waa caddayn buuxda oo ful awey waxaan rabaa marka caddaynta maxaa usoo bandhigaya waxaan usoo bandhigayaa looga hadalkiisu qiimo male kun sanoo dambe hadduu sii jiro oo sii qaybiyo qiimo male waa tuug weeye tuugna hadda waxa weeye fartaa lagu fiiqayaa dhigaysa isagu waa nin dhulku u dhaqaaqayo laakiinse dadka halaka igaga xiran oo aan qiimo badan ku hayo oo aan iyaga ku hayo waxa weeye wax badan aan maxaa ku dhahaa ku ahay saddex baa ugu muhiimsan saddexdaa qayb waxa weeye qayb shiine iska nacab meel iga qaada ma garan karo laakiin haddaan ducaynayo iyagu habaan oo fasirtaan arrintaa aad bay uga faa'iidaysteen waa wadwadeen qiimo ma leh waxba igama qaadi karaan weligood bay iska qayliyeen kuwaas shida ma leh qaybna waa qayb taqaana si shaksi ah oo waxaan galo iyo waxaan gudo og oo dee nin muxtarima inaan ahayn la socota qaybtaasina uga taqaanaayo nimaa taqaanayaad ee lama dhaho inaan isu basiro oo saatan iyo saatan bay ayaan dhaho uma baahna qaybta saddexaad waxa weeye qaybta dadku u badan tahay oo ah dad daacada oo igu xiran oo aan wax ku ahay oo i dhegaysta qaybtaasi wixii ay qofka ku arkaan ama ay ku maqlaan bay ku xukmaan qaybtaa marka waxa weeye wararkii beenta ahaa dad badan oo kamid a ku kadsoomay waxaan rabaa marka xaqiiqada inaan usoo bandhigo oo ay indhahooda maxaa ku dhahay kaga dhirgaan oo ay dhagahooda ku buuxaan oo markaa iyagu dhinacii ay qabaan ay la aadaan odaygu waxa weeye dee nin dhiiqa la geliyey siduu isu barxo waa yaqaanaa marka isugu waaynina videoga kana sii sheekeeya caddaynta aan hayo youtube-kayga iyo page-kayga facebook baan soo dhigi doonaa marka bilaa calay sii sheekeeya si dadka inta ugu badan